raxmatullaahi tacaalaahi wabarakaatu. qubanaha galabta waxaan ku dul istaagaynaa ciidamadii beledweyne laga dejiyey ee dowladda federaalku ka dejisay uguna talagashay inay amniga doorashooyinka iyo amniga guud ee gobolkaba ay waardiyeeyaan ama sugaan. waxaan wada daawanaynay mucaaradkii kuwii musharaxiinta sheegan jiray, kuwii haddii farmaajo hadduu dhaho allahu akbar waa nacayay dhihi jiray oo afka qaylo ku shubtay warqada soo saaray. waxaase la yaab iyo amakaag noqotay ra-iisul wasaarihii wuxuu shiriyey xukuumaddii golihii wasiirada. waxay soo saareen ra-iisul wasaaraha idin sheegay waa garanaysaan waa baahane. waxay soo saareen in ciidamada dib loo soo celiyo. waxyaalaha marka isweydiinta mudan baa waxay tahay, ciidankan waa ciidan Soomaaliyeed, gobol ka mid a ciidankan gobolada Soomaaliya bayna ka degeen. ajanabiga beledweyne jooga ayaga uga muwaadsan oo dhashay gobolka. ragga hogaaminaya ciidamada madaxda oo ah gobolkay u dhasheen, amniga gobolkay sugayaan. waa magaalo ka mid a magaalooyinka haddii Soomaaliya oo magaalooyinka ugu waaweyn. in ra-iisul wasaare inta hadla yiri ciidanka la soo celiyo waxay ku tusaysaa damiir xumada iyo dadnimo xumada askariga Soomaaliga ah ee tuutaha qabaahi inuu nimankan u xisaabsan yahay in farmaajo dhalay, wiil farmaajo dhalay inuu yahay, inay u xisaabsan tahay bay ku tusaysaa. waxaa amray ciidankaas dalbaday ay ku tageen amarkiisa madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle mudane Cali Guudlaawe. bal haddii maanta deni dalbado hal ururo goror lihaacado ay yimaadaan amniga la sugayaan oo dhaho oo ay tagaan, maxay tahay dhibka ku jira? haddii Axmed Madow dalbado hal urur haram cadiyo gorgora oo halayka halagu caawiyo oo loo geeyo, soo ciidankii dalkan loo soo tababaray maaha inay meel kasta amnigooda sugaan. waxaan maanta halkan u bogaadin uga jeedinaya taliyaha xoogga dalka Soomaaliya odawaa oo shalay BBC ka wareysatay. waxa uuna si toos ah u cadeeyay ra-iisul wasaaruhu si xukuumaddiisa ugu madax bannaan yahay ama wasiirada ugu madax bannaan yahay baan ciidanka anigu ugu madax bannaanahay. amniga meeshii amni sugid u baahanna cidna kala tashan mayno, waa tegayna. excellent, waa shaqo fiican, karti ka muuqato iyo dadnimo. la yaab ma leh inay maalin kasta warqad soo saaro baahane oo ina Cabdishakuur uu adeegsanayo oo uu haddii ala ku rooyo maalin waxa shalay uu u dig iyo dam lahaa markuu lahaa amniga qaranka lii dhiibana wax kale ma ahayn aad odawaa xukuntid bay ahayd oo meeshaas meel allaala meeshii amni sugid u baahan iyo dantaada ha ku shaqeeyo oo aduu lacag ku qaaday ka ma dhicin. balse ceebta ka raacday waxa weeye warqadan kii gaashaandhigga iyo kii soddon meel haystay iyo asagiiba iyo wasiiradii kuwii masaakiinta ahaa oo la yiri saxiixa warqadanba waxa ayaan darro ah maalin kasta warqadii soo saaran inaysan soconayn, inaysan meel la ka soconayn. waa kale ninka la yiraahdo soddon meel haysta iyo rowla baahane beledweyne ka tagaan bal ciidanka soo daabura ama soo qaada. maxay ka qaban? aragtay maxaad oran ma ishaad wax kaga tari? aragtay maxaad oran ma ishaad kaga tari? bal ciidanka Jabuutiyaanka iyo Ugandayska jooga meesha la yiraahdo beledweyne jooga ee nabad ilaalinta u jooga iyo wiilkan Soomaaliga ee beledweyne u dhashay tagay ya bal kuwan amisom bal oran ma soo ka baxaan maxaa kuwan ku gudan? midda kale ciidanku doorasho boobi kara. doorashada madaxweyney meeshu leedahay, madaxweyney leedahay oo Hirshabelle madaxweyne waxa Cali Guudlaawe. cidda uu yaa ha tartanto ama ismada u soo gudbiyaan ba howlkan galay lama galay baa lagu qabanaya, xarunta lama galay baa lagu qabanaya doorashada. ciidankaasi halkaas amnigooda sugayaan. ciddii ruusadu wadata inay tartanto baa galaya koo tartamay. bal ciidanka wax laga dhaxbaaraya maxay? war askariga Soomaaliga ay tuutaha qabay meena farmaajo ma farmaajo dhalay ma farmaajo
farmaajo ka dhex muuqda. waxaan kaloo idin ogeysiinaya xaaladda beledweyne ee haddii aan la kuroyo kacdoonka iyo jamhadeynta iyo haddii aan la kuroyo muddada cakirneyd waxay cakiran tahay almost muddo gaaraysa sanad iyo sanad iyo 5 bilood meelaha. cali guudlaaw intii la doortay beledweyne waxaa ka taagnayd qalalaasahaas hal cid ka gaadhay ma jirin. waxaan arkayay Sanbalolshe, waxaan arkayay Goodax Barre, waxaan arkayay cantaliyaayadii gobolka u dhashay oo hadlaya oo leh waxaa lagu waayay kii hore meesha xukumi jiray lugta gareen waxaan arkayay haddii laga ku haya waxaan ka wadaa ninkii lugta gareen waxaan ka wadaa kii waagi dhaweyd madaxweynaha ahaan jiray meesha ka ahaan jiray. waxaan arkayay ayaga ku haya waxaa lagu waayay xabad laguma raadin karo. war xal maxaad ku raadisay gobolka idinkaa u dhashay ninka la yiraahdo Sanbalolshe farmaajo in afar halkaas intii ay ka taagneed dhibaatadu nin dhan oo gobolka mas'uul baa tahay farmaajo caydiisa on baad reerka ugu idman tahay ninka la yiraahdo Goodax Barrow ninka la yiraahdo haddii la ku rooyahay Cosablow nimanka meesha soo wada maray ee madaxda gobolkana ee qaybtood xildhibaanka ahaa maxay tahay waxa aad intaas soo sanay dhibaatadu taagneyd inta maalin la gogol fidiseen maxaa la kala tabanaya ma tirahdeen maamulka cali guudlaaw reerkiina waxay tabanayaan ma kala hadashay hal ma raadiseen xabaday tagi bad ku hayseen halkaas sanay marka haddii xal la waayay waa in dawladdu xoog wax ku muquunaysaa waa in dawladdu had amniga sugtaa wiil macawis qabo qori kaasa u jiidanaya oo beledweyne haddii la ku rooyo kala xiray waxaasi samcad ma ninka rag adraac al-shukuri oo fita ka riixaya arkay oo ku haya waa dawladdu wax ciidan geyso. war horta idinku xal ma raadiseen beesha hawiya ka soo jeedaan cali guudlaaw waa hawiye kuwa haddii la ku rooyo maanta kacdoonka bixinayo ama beesha xawaada ka soo jeedana waa hawiye. ilaahay baan idinku dhaarshay xataa gobol inta fidiseen maxaa ka tabanaya ma tirahdeen mucaarad ahaw anigu mucaarad kasto aan hebel ku aan farmaajo ku ahay markii gobolkayga dhibaata ka jirto waa inaan u labistaa sidii gobolkan u xalin lahaa Soomaa maxaad qabateen habeen iyo maalin waa kii shalay hadlayay Sanbalolshe habeen iyo maalin anaga hawiyaadaas ku haya farmaajo hal la saaro farmaajo gobolkaad ka dhalatay waa beledweyne naxawaadlaa baa tahay maxaad ka qabat maalin gool ma dhigta xataa ha ku fashil ma daartid laakiin nabadeyn ma raadis warkaade maxaa tabanaysaa oo adigu maxaa tabanaysaa sidaan rata ma raadis inaad baasiin ku shubtaano ka adiga Goodax Barre farmaajo qurxo ku hayn jiray ee saa u leefi jiray farmaajo soo yara dhacsiyo qabriga Maxamed Siyaad Barre ku dul sujuuday kii maanta wuxuu leeyahay farmaajo wax wada baxalki farmaajo wuxuu wada war siyaasadda muufama war maslaxadda ummaddu inaad maalinta qalada haysatina inaad saa inta u faysatid oo digsiga saa u qabatid saa u xagatid ma maalinta wasiirka ahayd Goodax Barrow qofkii xawaalaa Allah halkaas ka soo boodis aamus dayus yahow farmaajo waa rasuul bad ku hays maanta waa caayisa isma dhageystid meeqa muuqaalada hore ma daawatiniya quraanada hore ma daawatiniya sawirada hore ma daawatiniya dib isku madaxtiniya Sanbalolshe sidoo kale shalay markuu naba sugidahay ee uu qalba dhagax dhiibay farmaajo bukuhay maanta waa ka لو أحدت للبشر عليها 19 لو أحدت للبشر عليها 19 ورنمان يهو على وشينا إيا كالليحية مصلحة الشعبك مصلحة الديجانك مصلحة قبلك كالليحية وحاربت سياسة كيف تشيدو ما شارت باربارو لكن قبلك إيا شعبك إيا الديجانك maslaxadooda ka taliyo xabadha ka ridinin ciidanka beledweyne la geeyay cid duulaan kuma ah hebel soo qabta lama oran jabhadda meelaha maraysa weerar lama oran cali guudlaaw waa dalbaday nabad sugid ahaan buu u dalbaday amniga doorashada meesha ku qaban doono ee xarunta lama galay amnigeeda inay sugaan buu u dalbaday taliyaasha ciidanku ka dalbaday waana waajib qaran oo dastuuriya oo waa amar wuxuu ka qaadanayaa maamul kasta oo Soomaaliya ka jira haday dhahaan war meeshaan uga baahanahay
caawimad baan kaga baahnaa ciidanna sii waa uu siinayaa si deganaanshaha iyo gobolka loo xaliyo si aan cadowga uga faa'iidaysa nimankiinaa qaylinaya farmaajo yuusan idinkaga dhex muuqan si daacadaan u hadlaya farmaajo yuusan hooyadaa kaaga dhex muuqan hooyadaadi ku dhashay markaa wejigeeda fiirisid yaysan farmaajo kuula ekaan oo hadili halkaas xaalku idinka maraya wuxuu idinka marayaa habarta hooyadaaya ku dhashay markaa wejigeeda fiirisid inay farmaajo kuula ekaato oo aad dishid halkaa yaysan baash kula gaari halkaa yaysan kula gaari halkaa yaysan kula gaari maanta beledweyne waa nabad xabadi ka dhici mayso laakiin cid kastoo amniga ka hor timaada xaq waxay u leeyihiin ciidamadu inay gacan bira ku qabtaan hal sano iyo dheeraad buu cali guuldaawo wuxuu sameynayey haddii alla kuu roon yahay dhibrin sameynayey ayagaa qirayay cali guuldaawo intaasoo sanaa dul qaadanaysay jooji ciidamada oo de maxaa haray waayahay ma isdhiibaaw mise wuu iscasilaa hadduusan awood wax ku muqunin oo amniga doorashada uusan sugan muxuu sameeya oo awood kale ma hayo waa maamul curdane uusan dowladda federaalka iyo saraakiisha ciidanka u socon waray garab taara muxuu kaloo sameeya bal ninkaa idinku maanta wax lagu eedeeya ma garanaysaan hal sanee bar buu magaaladii dhaqaalaha ugu weyneyd ee beledweyne ahayd ee haddii alla ku rooyahay uu madaxweynaha u ahaa uusan tegin aragna sidii loo doorto intaa maxaa hortaagnaa wiilal yaroo macawisleeya hortaagan oo niman siyaasiyiin oo danleeya ay dabada ka riixayaan madaxweyne kuma aqoonsanin war ila hadla wax wada hadal waa laga diiday cid la hadlaysa male magaaladii waa kala xiran tahay ma imaan ka dhid baali marka muxuu samayn karaa marka maxaa uu samayn laha waa inaad xoog wax ku muqoonaysa waa inaad isticmaashaa haykalka dowladnimo waa inaad muujisaa inaad dowlad tahay ee aadan ahayn been la caybsanaya aadan ahayn intaa way muhiim marka nimankaa siyaasiyiinta oo ay ugu horeeyaan goodax barrihii shalay farmaajo qabrigiisa sujuudda kala dul ninka la yihahdo maxaa siyaad barre qabrigiisa u sujuudayay si uu iskaga dhaadhiciyo haddii alla ku roon yahay farmaajo iskaga dhaadhiciyo ninka la yihahdo muxuu ahaa bahalkii ninka la yidhaahdo sambaloolshihii farmaajo quraxow shalay ku haya markuu nabadsuguda fadhiyey waxaas oo kale war anigu hadal waxaan idinkugu soo koobaya wejiyada hooyooyinkiina iyo caruurtiina yaan farmaajo idin muuqan markaasaa ninkastoo ooyid u fiirsho farmaajo ka dhex muuqanay inuu dilo waa idin macnaynaya kelmadda idin leeyahay waa idin macnaynaya gobolka hiiraan beledweyne xalkiisa iyo xasiloonidiisa iyo doorashadiisa iyo haddii alla kuu roon yahay nidaamkiisa iyo amnigiisu hadday kaaga dhex muuqato farmaajo oo askariga amniga sugi lahaa aad tirahayd ya farmaajo u egyahay waana farmaaje aad tirahayd waa dhibaato taas kaga gudbiya roob labaahane wallaahi been idiin sheegi mayo oo bilaahi been ku sheegi mayo oo tallaahi been ku sheegi mayo waa dhaartay waxaa dhacday nin baa hadda ka hor ii warramay ay saaxiib yihiin nin ay saaxiib yihiin baa ii warramay oo uu gurigiisa ku casumay wuxuu yiqadaas kugu nimid miisaan fariisanay ninkaas 2 saac meelaasaan wada joognay marka hore jimcay ahayd intu masaajid ku wada tukanay waa intuu raiisul ahaa wuxuu yidhi ninkaasi intaa aan wada joognay wax kale kama hadlay niman dhalinyaraa baa la jooga oo saa ugu meeraysa markaas le hebel lamarkiis ma haysaa haa nin ma wacaa maanta ma wacaa weligii raiisul wasaare ma wacine maanta ma wacaa iwac dhiiq halow may garanaysaa maya leeya moogta weligaa ma islahay ra-iisul wasaare dalka baa ku soo wacay waa rooble ninka kula hadlay markaasuu rooble horta weligaa ma islahay roob waxaa kula hadlaya ninka la yihahdo ra-isul wasaare kusoo wacay ma islahay ka war hadda ka war intaas ku ganacsan markaasoo dhex dha markaasuu leeyahay ma kan dameeyo hebel kale iwac waa kuwa ay makhaayadooda siin jireen cook iyo ka ah meelahaaso sidiisoo kale cabitaanlayaal baad qof wacaya wallaahi oo bilaahi oo tallahi saan u qoslay kaada aga timi hadda markaad fiirisidna waa ninka soo fadhiisto hadalka yaalkeeda wuxuu ku leeyahay walaalayaal soo dhawaada walaalayaal soo dhawaada
malay Facebook fadhiya qofka nothing ka way marka in macallin dhinac loo adeegsado yiraahdo ciidanka la soo celiyo ciidanka yaa loo dhis bal weydiiyo su'aashaas ciidanka la soo celiyo ciidanka yaa loo dhis